السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada asxaabay waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa xayawaano ay adag tahay inaad aaminto nooc ay u nool yihiin. Xayawaanada ayaa Alle subxaanahu wa tacaala siyaabo kala duwan u abuuray. Waxaa jira kuwa ka duwan kuwa hore u naqaanay. Haddaba xayawaanada sida ay bini'aadamku leeyihiin kuwa curyaamiin ah oo leh xubno dheeraad ah ay xayawaanaduna sidaas oo kale si lamid ah u leeyihiin sida mataanayaasha isku dhagsan oo kale. xaaladan oo kale ayaa ah dhif iyo naadir waxaana xaalada noocan loogu yeeraa face failing. Haddaba waxaanu soo qaadan doonaa qaar ka mid ah haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan muuqaalka like saar sidoo kale ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid. neefkan looda waxa uu ku dhashay lugo la'aan iyadoo ay ka maqan yihiin labada lugood oo kale sida muuqaalkan aad ku aragtaan. waxaad arkaysaa neefkan looda ee bilaa lugaha ee u socda sida aadamaha. neefkan waxaa dhaqda qoys degan waddankaasi Indonesia. neefkan ayaa aanay wax dhibaato ku haynin lugo la'aantu maadaama uu ku dhashay oo uu la qabsaday inuu socdo sida dadka. muuqaalkan oo la soo geliyay baraha bulshada ayaa waxay dadku uga falceliyeen siyaabo kala duwan halka qaar ay dhaliilayaan oo ay leeyihiin muxuu ka haystaa neefkan miyuu qasho halka dadka kalena ay ka soo horjeedaan fikirkaasi hore. ridii lugaha lahayd sidaynu muuqaalka hore ku soo aragnay waxaynu aragnay neef lo' oo labada lugood ee hore ka maqan yihiin. haddaba neefkan rida waxaa yana maqan labada lugood ee dambe. sidoo kale neefkan rida waxaa dhaqda qoys degan waddankaasi China. haddaba sida ay muuqaalkan ka dheehan karno waxaanu arkaynaa in neefkan looda aanay ku hayn dhib. sidoo kale neefkan waxa uu cunaa sida xoolaha kale ay wax u quutaan waxaana uu socdaa si caadi ah isagoo aan dareemeyn dheelitaan. neefkan looda ee idin muuqda waxa uu leeyahay 6 lugood waxaana lagu dhaqdaa neefkan dalka Hindiya. labada lugood ee dheeraadka ayaa waxay kaga yaalaan xagga dambe ee dhabarka. dhacdada neefkan la soo diristay ayaa ah dhif iyo naadir inuu neefku xagga sare ee dhabarka luga kaga yeesho. tanina waxay ka dhigaysaa neefkan mid leh arrin cajiib ah waxaana dadka Hindiya qaarkood arkaan inuu neefkan yahay mid barakaysan. Mikumi waxa uu libaaxan ku noolaan jiray beerta xayawaanada ee waddankaasi Tanzania. haddaba libaaxan ayaa waxa uu ku soo dhacay dabil ay u dhigeen koox ugaarsata ah sanadkii 2009. kooxdan waxay u qaadeen beer kale oo la yiraahdo Mesapi laakiin nasiib darro libaaxan waa uu la qabsan waayay waxaana isku dayay inuu ka baxsado beertaas laakiin koortu waxa uu uga xidhnaa waayarkii ay kooxda ugaarsatada ku soo xidhay. libaaxan waxa uu beertaasi ku jiray muddo 3 sano. 3daas sanana waxba muu cunin. arrintanna waxay ka dhigtay libaaxii mid daciifay. ugu dambeyntii ugaarsatadii way sii daayeen sanadku markuu ahaa 2012 waxaanay moodayeen inay tan tahay dhamaadkii libaaxa Mikumi laakiin si caadiyan ayaa ay dib ugu soo noqotay awoodiisii. maskan labada madax leh ayaa dhif iyo naadir ku ah dunida. maskan badanaa labada madax leh waxaa laga helaa dalkaasi Spain ee qaaradda Yurub ku yaala halka qaar kalena laga helo magaalada Florida ee ku taala dalkaasi Mareykanka. maskan labada madax leh ayaa waxa uu quutaa sidii 2 mas oo kala madax bannaan sababtoo ah waxay leeyihiin 2 dheefshiid. taasina waxay ka dhigaysaa in madax walbaaba u baahdo cunno gaar ah. haddaba waxay cilmi baarayaasha ku shaqo leh xayawaanada ay sheegaan in maskan labada madax leh uu noolaan karo bilo halka qaar kalena ay kasii badnaan karto meertada noloshoodu. maxaad u malaynaysaa neefkan geela ah? muuqaalka jooji oo fikirkaaga noogu reeb xagga hoose ee commentiga. waxaan soo gaarnay guntii ee gabagabadii barnaamijkeena. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. fadlan noogu reeb qaybta hoose ee commentiga fikirkaagu wuxuu yahay.
mahadsanid.